هاي ما حد رمي سر حلبانة أنا بقول يلا بقى حلبان مركيوم سمعت دقيقة مستفر كله الدراب أفريقيا برلمان كحكي كحسانتك كذا إسرائيل جندياشي يقول حلا واحد صاف طوبي واحد عضينا بقول يلا بقى تدخل دبته وقصوا طريرين هالبدك يقول ما توا كريس من يدنا فوحها واحد كلو جرتا إن حلبانة إيه كان قاركود قسم لو عليه قارنا هول كدحديس عسكرتين وين جليسي واد مقليسين واد واد اركيسين قارنا حتى يوسف ديره oo kale askari garab taagna wuxuu ku lahaa wad maqleysan waana xildhibaanadii socodka shacabka wajah ee shacabka metelayay maanta waxa ka dhacday arrin taariikhi oo taariikhda geli doonta xildhibaanadiina ahmiyadoodii way ka soo wada dhaqaaqeen markii ay afhayaanadu ula timid wax sharci darraa ساكن حد عاي ساكن وحاد علي حلوانadii codkii la siin waayo oo shakhsiyaad aan la doonaynin mooyeen codkii la soo dhigay in la siin waayo waxa kale oo dhacday dad yar ajadii la soo dhigay in la diido laba ajado la soo dhigay si cad loo diiday waxa kale oo weelisay waxay ahaayeen ajandadaas waxay ahaayeen kalsoonida xukuumadda iyo kala noqoshada iyo afayeenka xilli diyaarintiisa cusub afayeenkii iscadilay afayeenkii bedeli lahaa in la xiloo diyaariyo waxa kale oo weelisay gabadhu inay iska waayaan awoodii ay lahaayeen xildhibaanadu inay tuftay oo ay diiday inay codkii u qaybiso dad yaroo shaqaalaana intay tiraa halkaa taga inay tiraa intaas yidhi socod ay tiraado oo codkii u diido inuu sax yahay yaa diiday imisa gacanta taagtay ama tirad dhibaatadaasaa qabsatay saasaa ka soo baxday dhibaatada saaka dhacday waxay ahayd jadayaashii baarlamaanku waxay codsadeen in xukuumadda kalsoonida loo qaado markay baarlamaanku codsadeen xukuumadda in kalsoonida loo qaado arrintaas baana lagu hor istaagay baarlamaanka iyo xukuumadda oo afhayaanadu la socoto afhayeen ku-xigeenadu la socoto arrintaasaanu isku afgaran weynay markaa isku dhac baa meesha ka dhacay baarlamaankii waan ka soo dareernay wax yaroo meesha lagu celiyey baa jira waxaan bulshadannada u caddaynaynaa shacabka islaamka soomaalida etoobiya islaamka soomaalida inaan kala noqonnay kalsoonidii xukuumadda DDI waan kala noqonnay xukuumaddii ha dhacdo bismillaahi raxmaani raxiim axmed haye waxaan meeshaan maanta ka caddaynaynaa in sharci darra ay ka dhacday kala fadhigii baarlamaanka caadiga ah ee qarsoomay ee xubnaad ajendayaashii shirka hor yaallay ajende ka mida oo ahaa kalsooni kala noqoshada xukuumadda uu hoggaamiyo mustafa maxamed cumar uu hoggaaminayay inay xildhibaanada soo dhigeen si buuxda codkaana u taageereen kadib markii arrintaa dhacday waxay noqotay in arrintii ay aftuubto afhayeen ku-xigeenka gabadha afhayeen ku-xigeenka fardowso maxamed ay aftuubtay markaa kadib okaa xukuumadda waxa weeyaan xubnaha golaha xildhibaanada sharafta leh oo 110 dhan hadda waan ka soo baxnay waxaana go'aan ku gaadhnay in mataqaana go'aankannagii ahaa xukuumadda kalsoonidii waan kala noqonay marka waxaan farayaa dowladda federaalka hay-adaha mataqaanaa kala duwan baartiga mataqaanaa BB si degdega mataqaanaa xukuumad shacabka ku badbaadiso inuu soo dhiso bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan shacabka dowladdeegaanka soomaalida waxaan ku wargelinaynaa in afduub culus ka dhacay guriga golaha baarlamaanka kala fadhigiisii koobnaad aan caadi yahay maanta afduubkaasoo ka mid ahaa 6 ajabda la soo dhigay si xor ah in loogu daro ajabayaal kala noqoshada magaranaysaa kalsoonida xukuumadda oo kale kusimaha hadda magaranaysaa si hayaha ah kaasi markay dhacday waxaa guriga gudihiisii ka dhacay in lays afduubo laysla xoogo awoodna laysu adeegsado kadib annagoo baarlamaan dhan 120 xubnood ah waxaan kaga soo baxnay in aanan u dulqaadan karin dhibaatada ka jirta meesha kalsoonida xukuumadda saacaan kagala noqonnay hanjabaad badan iyo albaab xulsho badan iyo macnaha boorsooyinka gabdhii lagala hadho moodaladii naloo diido dhibaatooyin culisna ilaa hadda meesha ka jiraan waxaan idiin sheegaynaa dhammaan shacabka soomaalida waxaan u sheegaynaa ee ku nool 12 gobol inay si xor ah uga hadlaan mustafana u cambareeyeen barnaamijna ka sameeyeen arrinta maanta baarlamaanku sameeyay assalaamu calaykum annagoo xildhibaanadii heer deegaana markaan aragnay in sharcigii iyo dastuurkii la xoogayo afhayeen ku-xigeenkuna hoggaamintiisa ay 100% ay xumaatay isaguna uu la hadlayay dad uu gooni ula soo ballamay oo codka uu siinayay ayaan annagoo 120 xildhibaan aan ka soo baxnay waxaana idiin sheegaynaa shacabkii annagana soo doortay in aynan
حكومتي أن قتي أكل نقني وأكل نقني هو الشيخ هذا السلام عليكم أنا حلبان مركي أمامتي حاجات كسر حاجات كسر أنا كسب عندك ما السجاي قبل كندا وأنا عبد الله يوسف وبرسول اللي ما بارك اللي لقيت ولا يروح وهذا بنات وصل هذا وصل بحنا المركب وأنا وصل بحنا المركب أنا عطل قاضي عشان دياشة أي عذيان عفتني ستة أنت كنا ديدان حدوان أنت بدنا ديدان بقولي أيوم باشك الأخطبوط اللي يدي بقولي سبعة ساسون كل ساسون أنا حدوان صدق الضربين وحنا صار فرمي كنفدي الصلاح حدواننا كجيت وحنا صادق أجنبيالكي oo ay ka socdaan ilaa 6 ajende oo la soo diyaariyay xabiiska golaha xildhibaanada la soo diyaariyay laba ajende oo cusub golaha xildhibaanada guriga ku soo daray labada lagu soo daray in aan loo qaado waa la diiday labada lagu soo daray waxa weeyaan waxa kamid ahaa in afayeenkii hore ee dawladda deegaanka Soomaalida ma taqaanay booskiisa la buuxiyo oo golaha uu yeesho afayeen yeesho qodobka labaadna wuxuu ahaa xildhibaanada ku dareen in xukuumadda lagala noqdo kalsoonida amaba kalsooni ila fiirinta xukuumadda ee golaha xildhibaanada ku qabaan ama shacabku inuu ku qabaan ayay ahayd in lagu daraajado labada qodob dhibaato ka imaaday in la cod loo qaadano waa la diiday si cad baana loo diiday waxaa soo haray ajandiyaalka lixda ee kala dadka in la ansixiyo gacanta ku taagay waxaan tiradu konton lix qof ay hayeen tiro waxaa meesha golihii laga sheegay oo uu guddoonku sheegay 110 xildhibaana ayuu sheegay ay ahayd dan haddii ay suurtagali wayso wixii lagu daray xildhibaanada ay soo jeediyeen ajandiyaalkii lagu daray looda ajanda ahaa ee kalsooni kala noqoshada xukuumadda iyo afayeenka cusub ma taqaanay ku darintiisa asxaabtiisa ahayd ee ay diideen golihii shirkadoodu uu diiday golihii uu cuntin waa inuu sii fadhiyo in tiradooda ugu badneedna way soo baxeen ilaa tirada hadda 110 ay qonna ku joognaa tiro badan oo soo xildhibaano ka soo baxay hoolkii oo ilaa soo gaarin waxa ciidan baa xelinayay dhibaato badan inay ku dhacdeen hadda waa marjay waa u maleynaya oo filaya oo waxa weeyaan ciidankii oo xagga sharciyadan aan aad ugu bisnayn ayaa markaa si yar qaldan oo la dhaqmay ciidankii oo ka dhaqmay marka si guud waxaan u sheegayaa hay'adaha sharciga meesha وتقناي ودك إن أي دبعة على كل شيء جديد أي قطع ريديات صومالي أنت خيال الشيء وما سنتي. بسم الله معي وعرض أحمد ساكو حمل معنا كلفة دجانجي وحوي محيي الشنات قرم اللي بعنا بفدي وحي هاي بقولي وحي هاي سيدنا وحوي محو هاي حلقي وحوي حاجدياش ماشي يعني اللي حاجدي هاي أنا قال لي أجندنا قدر سناي أفيان حسبني ماشي محن كل هذا لو صوتره وأجندنا أي نقطة إني وحوي كرسوني ولا كلام نقطة محيي حكومته أيام قصة سناي حلقي وحوي أجندياش أنا أطلع الله قاعد لها أيا وحوي عدك لقلقلية kadib markii codkii la qaaday ay dad aan tirada 56 nood ayaa waxa weeye ansixiyay in waxa weeye ajandayaasha la ansixiyo xubnihii kale way diideen codkii la soo yeeriyay wuxuu ahaa 110 xildhibaan inay codkii maxaa qoray waxayeen nidaam afduuba oo caburis oo farbadan ba meesha maxaa qoray ka jiray dhanka ciidanka waxa weeye gabdho waxay borsooyinka laga hayo dad waxa jira albaabka lagu celiyay xaalad badan ba meesha ka dhacday say doonaba sahaatay annagu meesha fadhinaano sheegnay inaan xukuumadda kalsoonida kala noqonay sidaasaanu ogala noqonay waxaan leenahay waxa weeye maxaan ku raadayay aanu sheegaynaa shacabkanaga sharafta aanu sheegaynaa inay sida ula socdaan sida u ogaadaan annagu waxa weeye maxaan ku raadayay waajibaadkiina saarna aan ka soo baxnay tan labaad aan sheegayo waxa weeyaan inay waxa weeye maxaan ku raadayay federaalka xukuumadda sharafta ee federaalka inay 24 hour ay waxa weeye nagu soo gaaraan sida shacabkooda badbaado ay u siin lahaayeen inay nagu soo gaaraan midda kale aan sheegayo waxa weeyaan muxuu ahay xisbiga PP annagu xisbiga PP baan nahay xisbiga dowladda shacabka Soomaaliya Itoobiya nahay waan soo wareegnay magaca cusub ee PP dan qaadanay ilaa iyo nafuris xisbiga PP baan la taaganahay oo waxa weeye ahaanayna balse laakiin xaaladda maanta taagan ee golaha baarlamaanka ee deegaanka ee shacabka ka taagan xukuumadda federaalku inay na soo farageliso 24 hourna ay nagu soo farageliso ayaan waxa weeye maxaan ku rabaa ku gaarsiinay بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو حلبان أحمد عبدي فرنهانتي ساكا وحنا عي واحد لو قطعوا أنا وحنا عي حلبان في ديجانك شربنا لو قطعي شربنا لو يالي وانو قالنا جوب شركة لو قطعي وانا تحتوي ما هي جوب النبي عندنا لو قطعي سبب أنا وقالنا وادنا شقية مكية الجدية الله يدير إننا نقارن
lix ajentay xukuumadda soo dhigtay laba ajenta ku darsan oo ah kalsooni kala noqoshada xukuumadda maadaamay ku guulfaraysatay hawlihii nabadgelyada horumarka maamulka suuban iyo shaqooyinka loo ilmaday ay ku guulfaraysatay hal sanana xildhibaanada inay shir u qabanay ayay lixda ajenta soo dhigtay annaguna labadaasaan ku darsanay kalsooni kala noqosho iyo afhayeen cusub waayo afhayeen baa meesha ka baxay hadday masaad ku soo baxday hadda waxaan ku soo baxnay ugu yaraan 103 xildhibaan way soo baxeen kalsooni ahaa quorum quorumku 100 iyo wuxuu ahaa 84 muxuu ahaa isoo sheegay hadda inta aan banaanka aqlabiyadda marka soo baxday aqlabiyaddu way soo baxday dad fara badan oo gabdhaha kursiyada laga haysto xoog lagu celiyay yaan lagu ceeboobay meesha ku jirta xukuumadda federaalka waxaan amrayaa meeshan dhibaata ka jirta deegaanka haddaad shakhsi iyo laba ruux adu danaynaysaanna u daneeya haddaydan u danaynaynin annagu sacayibka iyo sumcadiisa ma garanayno waxaana raalli ka ahayna maanta cid kuma qasbi karto xukuumadda federaalka iyo ra-iisul wasaaruhu waa inay si adag isu falgeliyaan cid kastoo arkiisa iyo cid kastoo ummaddan ka naxaysana maanta ta dhacday waa inay ku tusaale qaadato wasalaamad